السلام عليكم أصحابتا كسر دوادة مركلة iyo barnaamijyadeena caafimaadka aan kaga soo gudbino mar waliba bukaan deeq hadii ilaahay idmo muuqaalkeena maanta waxaan u hadli doonaa xanuunka lagu magacaabo istarooggu waa cilad ama xanuun ku yimaada xididada dhiigga ee maskaxda qoodiya xididada oo gaarsiin waaya dhiigga oksijiinka iyo nafaqada iyo sidoo kale energy-ga waday qaybaha kala duwan ee maskaxda markaas oo qofka ay la soo dirsaan calaamado jiri kara 24 saac ama wax ka badan ama sidoo kale oo qofku u geeriyoon karo istaroogga waxa loo qaybiyaa laba nooc oo kala ah nooc lagu magacaabo hemorrhagic stroke oo ah istaroog xididadu ay maskaxda ku dhex qarxaan isla markaana ay dhiigga ku fatahaan qaybaha maskaxda ayagoo aan gaarsiin meelihii looga baahnaa dhiigga iyo nooc lagu magacaabo ischemic stroke oo ah in xinjiro xirto xididada dhiigga ee maskaxda qaybaheeda kala duwan dhiigga u qaybin lahaa markaana uu dhiiggu ka gudbi waayo qaybtii markaa uu marayay isla markaana ay maskaxdu dhimato ama ay qayb kamid ah shaqada ay joojiso istaroogga waxyaabaha soo dedejiya waxa loo qaybiyaa ilaa laba nooc kuwaas oo kala ah kuwa wax laga qaban karo iyo kuwa aan wax laga qaban karin kuwa wax laga qaban karo waxa kamid ah qofku inuu hore u qabay sonkor kale oo sonkortaasi management oo ku sameeyo si uu hortago inuu ku dhaco istaroog sidoo kale qofka dhiigkarka qaba waxa uu iman kara ama soo degdegi kara istaroogga management marka uu sameeyo ka hortag ayuu sameyn kara sidoo kale qofka cholesterolka qaba qofka aadka u cayilan iyo qofka nutritionkiisa ama nafaqadiisa isu dheelitirneen xanuunada aan waxba waxyaabaha soo dejin kara isla markaana wax laga qaban karin istaroogga waxa kamid ah daado kale qofka markuu aad u weynaado kale istaroogga uu nugul yahay laakiin waxba laga ma qaban karo sidoo kale dadka qofka waalidkiis ay wada qabeen istaroogga kale asna uu nugul yahay laakiin waxba laga qaban karo istaroogga qofka marka uu qabto calaamadihiisa waxa kamid ah kabaabiyo wajiga qayb kamid ah hadalka qofka oo isku dadarsama carabka oo weynaada aragga oo laba noqda lugya gacan dhacda ama kabaabi fara badan oo qaybaha kale ee jirka oo ka dareemo sidoo kale qoorto adkaata iyo madax xanuun fara badan istaroog waxa loogu hortagi karaa qofku inuu sameeyo wax lagu magacaabo lifestyle modification oo ah in wax ka bedelo noloshiisa oo sameeyo exercise ama almiito sidoo kale oo isticmaalo raashin isu dheelitiran sida raashinka qolofta leh oo kale sonkor iyo dhiigkar qofka hadii uu qabo kale inuu management ama ilaalo fara badan ama la socod fara badan oo sameeyo si uu uga hortago inuu ku dhaco istaroogga sidoo kale qofku in sigaar kale ama dawooyin la mid ah oo kale hadii uu isticmaalayay inuu aad uga taxadiro si uu uga gaashaanto inuu ku dhaco istaroogga markuu dhaco kadib daweyntiisu way kala duwan tahay istarooggu hadii uu yahay nooc lagu magacaabo hemorrhagiga oo dhiig uu ku fatahay gudaha maskaxda marka ugu horeysa bukaanka waxa la siin doonaa waxyaabihi u baahnaayo asaasiga ahay sida dhiig in lagu shubo oo kale pressure-ka ama cadaadiska dhiigkarkiisa oo kale hoos in loo dhigo oo ah in la siiyo dawooyinkii dhiigkarka loogu talagalay iyo sidoo kale waxyaabaha asaasiga ay u baahan yahay sida oxygen lagu xiro oo kale cadaadiska dhiiggiisa hoos loo dhigo oo kale iyo la socodkiisa oo kale ugu dambeynaa dhiig badan haduu ku fatay maskaxda wuxuu u baahan karaa qaliin oo maskaxda in la jabiyo lafta madaxa isla markaana la xaliyo dhiigii gudaha ku aruuray hadii bukaanku uu yahay ischemic stroke oo xinjiro ay xirtay xididada dhiigga ee maskaxda qoodin lahaay bukaanka marka ugu horeysa waxa la siin doonaa dawooyinka burburiya xinjirta xirta xididada qulqulka dhiigga mari lahaa duleeladiisa si xinjirta meesha loogu wareejiyo oo qulqulka dhiigga sidiisa caadiga ahaa oo ugu soo noqdo isla markaana qaybtii dhimatay ama qaybihii dhiiggu ka xirmay oo dhiiggu u gaaro shaqadoodiina ay dib u bilaabaan inta kadib bukaanku wuxuu u baahan yahay rehabilitation ama ka soo kabasho dhibaatadii gaartay hadii lagu gacan ay paralysis noqdeen oo kale aragga hadii dhibaato ay ku timaaday oo kale kabaabiyo waxyaabo la mid ah hadii uu lahay ama hadalku hadii uu isku dardaray intaas oo dhan rehabilitation ama dib u soo kabasho bukaanka in loogu dadaalo
ugu dambeynna daweyntiisu waa prevention ama ka hortag bukaanku inuu u helo stroke mar kale oo dib ugu soo noqdo oo taxadir fara badan la sameeyo sonkortiisa iyo xanuunadii kale ee u sahlay stroke inuu ku dhaco in la isku dayo in aad loo xaliyo inta kadibna uu sii qaato dawooyinka xinjirta looga hortago sida aspirinka iyo kuwa la midka ah. waa mahadsantihiin.